السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وإني سلامة أصحابتا ماشي كجرتا. موضوع waxaan ka hadlaynaa autism-ka. Waxaan soo sheegnay qaybihii lagu garan lahaa, calaamadihii lagu garan lahaa. Calaamadaha markaa ku aragtid markaa waxaa u gudbaysaa inaad dhakhtarkii aad la xiriirtid, dhakhtarka ilmahaaga aad la xiriirtid. Kabacdi aad markaa u tagtid dhakhtarka aad ku dhahdid cunugayga waxaan ka shakisanahay autism. Markaa su-aashu ku weydiinaya dhakhtarku waxa waaye inuu ku dhaho maxaad ku aragtay, markaas aad u sheegtay calaamadaha markaas aad kaga shakisan tahay. Dhakhtarku markaa wuxuu kuu qorayaa waraaq qaabilsan qayb dhakhtarka ilmaha la geeyo caadiga ah, qayb ka sareysa oo baaritaan ah. Marka isagu isla markaba kuma baarayo, laakiin wuu fiirinayaa. Markuu fiiriyo markaas wuxuu kuu gudbinayaa kuwa la dhaho SPZ, qaybtaas kuu gudbinayaa. Kabacdiina qaybta markuu kuu gudbiyo qaybtaas waa inaad ballan ka samaysataa. Ballanta markaa ka samaysatid baa u tegee. Markaa u tagtid marka hore cunugay eegayaan xaaladiisa iyo actionadu bixinaayo. Adigu mar 4 saac 5 saac bay ku qaadanaysaa waqti in maaragtay wiilka ilmahan gabar ama wiil maaragtay aad u geliyaan waqtiga siduu u dhaqmaayo bay markaa fiirinayaan. Jirkiisa suu dhaqdhaqaaqayo, wuxuu sameynayo, alaabo ciyaar u keenay. Adigu baaritaanka kaliya lagu ma caddayn karo. Waxay ku dirayaan markaas kuwa dhagaha bay ku dirayaan, dhakhtarka dhagaha ku dirayaan. Waxay ku dirayaan dhakhtarka indhaha kantarool ah. Waxay ku dirayaan dhakhtarka dhuunta iyo adu intaa qaabilsan. Dhagaha intaas isku dhakhtar badan oo qaabilsan. Kabacdi intaas oo dhan markii aad jawaabahooda soo qaadatid baa haddana ballanka lagu sameynayaa isla iyagii ah. Kabacdi waxay u dirayaan markaas ilmaha haddii qaybta maskaxda ay tahay, waxay u dirayaan qaybta maskaxda bay u dirayaan baaritaan ah. Haddii qaybta markaas ilmuhuna jirkana la socdo oo jirkiisuna maaragtay uuna korayna waxay u dirayaan labada meelood bay u kala dirayaan. Adi marba markaa cunugu aad haysatid waxay ku xiran tahay kii markaas uu jirkiisu maaragtay uu koraayo uu maskaxda tahay maskaxda kaliya u dirayaan. Haddii ay tahayna labadaba markaas adigu kii markaa ku maaragtay ku khuseeya bay ku dirayaan. Jawaabahaas oo dhan markay isku keenaan baa haddana waxa laga qaadayaa baaritaan kale oo misana sidiya markaas taasa markaa waxay kuu sheegaysaa kuu caddeynaysa inuu cunugaaga autism uu qabo iyo inuuna qabin. Taasa kala caddeynaysa. Markaas waxaa u soo gudbaynaa markaas oo caddeymahaas ay fiiriyaan oo walina waxaa imanaya markaas dad badan baa adigu 3 qof baa laga yaabaa oo college kuwa maskaxda qaabilsan ah iyo iyagoo 2 ah iyo waalidkii oo meesha fadhiya. Waalidkana waa la wareysanaya, waa marka go'aanka ugu dambaysa. Waalidka waa la wareysanaya, wareysi baa laga qaadayaa sidoo guriga u dhaqmo, waxyaaluhu sameeyo, waxyaalo badan bay ku weydiinayaan. Just markaa hadlaysi marka waalidka waxa laga rabaa inay maaragtay waxaan qadar waaye Ilaahay baa keena inaad ku qanacsan tahay in maaragtay oo aad walwal badan adigu aad isgelin. Waayo qofkani bini aadanka wuxuu ku qaban kara malaha Allah unba wax ku qaban kara. Marka taas markii laga yimaado marka saacado badan baa meesha joogaysa, saacado badan baa lagu wareysanaya. Adigu waa taas markay dhacdo kabacdi waxay leeyihiin go'aanka ugu dambeeyay baan gaarayna waa soo war hadlaynaa. Kabacdina waxa lagu soo sheegaya ama markaas ay qaybna ku siinaysa go'aanka ugu dambeeyay leeyihiin xanuunkaas anaguna waa kaas jira. Marka xanuunkaas markaa ka soo baxdid ay xanuunka caddeeyaan
ay dhahan xanuunkaas marka inaga markasta autismka ku soconina autismka ay cadeeyaan markaas iyaga kala cadeynaya cunug haduuna qabin ma qaba iyaga ku dhahaaya oo waxyaalahan waxa laga yaabaa waxyaalo oo ilmaha iskaga mid yihiin ma aragtaa ka shakida laakiin markasta adiga hadaa shakidid waa inaad baaritaanka ilmahaga aad geysa oo baaritaanka aad ku kala cadeysaa guriga hooyo hala fadhiisan cunug guriga ku haysan banaanka waa inaad geysaa oo dhakhtarka aad u sheegtaa sababtoo ah cunugu ilaa 5 sano ilaa 6 sano ugu badnaan 6 sano ilaa intuu yar yahay wax laga qaban karaa 6 sano haduu madaxa la galo cunugii haduuna hadlina sidii uu la qabsanayaa way maskaxdiisa qofkii bini aadanka wuxuu yahay ku weynaanaya adigana hadhow hooyo cunug ilmahan aaba iyo hooyo ilmahan markuu weynaado awoodina waa yaraanaysaa xoogin waa yaraanaya way adag tahay marka inaad isma macaamishaan adigii micnaha waa weynaanaysa da'ba ka daba imanaysa ilmihiina wuu korayaa oo xoog iyo energy buu yeelanaya marka hawsha isku day inaad hadda aad ka kacdid fadhiga marka kaas marka ka soo baxdid marka insha Allah aad micnaha autismka cunug lagu sheego waxaa jirta marka hay'ado autismka qaabilsan adoo buug baa lagu soo siinaya autismka sidoo maaragtay ilmaha loola dhaqmi lahaa waxyaalo badan sida isku fahmi lahayd adoo buug baa lagu soo siinaya waxa lagu soo siinaya markaas lagu geynayaa maxaa la dhahaa waxa lagu dirayaa waxa lagu dirayaa markaas kuwa autismka qaabilsan oo shirkadooyin ah oo macnaha bahalkii ah oo markaas kuwaas autismka kaliya kuwaas way waqtigooda way maaragtay badan tahay mar waxa laga yaabaa sanad inaad ku heshid waxa laga yaabaa 8 bilood inaad ku heshid adu qof nasiibkiisa ayaa saaciday meesha nasiib baa lagu kala fiican yahay marka kaas amartid kaas marka wuxuu ku sameeyaa balaas inuu aad ilmihii meeshooda aad u geysid iyo inay guriga kugu yimaadaan waxa jira caawinaamo badan oo furan oo maaragtay ilmaha laga caawinayo oo lagu siinayo waxa lagu siinayaa caawina badan oo dhinac kasta ah oo ilmihii lagu dadaalayo laakiin hooyo iyo aabo idinka xaqarsanina dadka Soomaaliya jooga iyagu dhaqtaro si ula xiriirayaan iyo meelahan aan hadhow video kala ka soo sameyn doono ma garan karin malaha Soomaaliya maleynaya laakiin dhulkan dadka jooga oo Jaaniska maanta haysta inay Jaaniska iska beer darayn waa koow ilmo dad waxa arkayso waxay leeyihiin cunug wax gabdho lagu dhahayo cunug waa xanuunsan yahay maxaad cunuga u sheegay maxaa u dhahe waxaan Ilaahay baa keenay oo waalidku inuu ku qanacsanaada cunugan Ilaahay baa ku siiyay alxamdulillah Ilaahay baa waxana ku keenay alxamdulillah shukran lah waa inaad ku qanacsanaata ha waxba kaama gelin dariskaaga halkan jooga qofka kale halka jooga wax ka khusaya malaha laakiin ku dadaal inta daris ka baqaysid iyo inta dad kale ka baqaysid in lagu caayo cunugaaga ilmahaaga noloshiisa ha beer darayn waayo cunug haduu weynaado hadhow waxa kama qaban kartid adigina awood badan uma ilajiga maanta aad u leedahay uma la yeelanaysid maalinta aad ka daba timaado isagana xoogiis waa ilmihii waa weynaaday jirkiis waa koray waxa aad ka qaban kartid malaha maanta ugu yaraan dhulka isla dhaco maanta markuu yeeyo dhulka isla dhaco waa qaban kartaa waa xijin kartaa laakiin bari markuu dhulka isla dhaco ninka weynaado dhulka isla dhacay ma qaban kartid marka waa muhiim nolosha in la baro tartiib loo baro sidoo wax u qabsan lahaa sidoo horta hadalka wuu iska imanaya laakiin muhiimadu waxa waaye ilmuhu haduu musqusha aado ilmaana musqusha aana tagin adag tahay hooyadii dib ku ah ilmaana cuntadii si fiican u qaadaneen cunto kaliya iska cunaaya hal cunto iska cunaaya ama cuntooyinka qayb baaba u khaas oo iska jecel yahay qaybta kale uu hadda intuu una fiirinayn haduu doono marka taasa waxay keenaysaa way adag tahay marka cunuga marka xaaladda isagoo yar aad ku diboonaysid hadhow adoo weyn ma ku diboonaysaa marka waxaan la hadlayaa dadka qurbaha jooga inay aad u dadaalaan waayo jaanis badan bay haystaan caawinaado badan ayay cunuga u helayaan
adigu la dadaal ilaahayna u bari kabacdiina ilaahay u bari si dadaalna la timaadid ilaahay guusha wadada wuu kugu toosayaa insha Allah waxaa inoo xiga fiidiyowga kale aan kala hadlayno meelaha oo ilmaha aad geynaysid insha Allah jazaakallahu khayr haddaad daawat